definitely look like now we can say Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey, has won this election. He's projected at 52.18%. Kemal Kılıçdaroğlu, the opposition challenger, 47.82%. So based on that, we can say that Recep Tayyip Erdogan is the winner. He's in the pole position for these elections. sida laga soo xiganayo warbaahinta caalamiga ah sida Al Jazeera inuu madaxweynaha Turkiga uu noqday Recep Tayyip Erdogan doorashadii ku celiska ahayd ee Kemal Kılıçdaroğlu oo la tartamayay isla markaasina ka guuleystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa wuxuu u hambaliyay guusha doorashada ee dalkaasi Turkiga Erdogan oo ku guuleystay warbixin ayaanu ka diyaarinay ayaa inayna horjoogihii maxkamadaha ee qaadiga u ahaa Al-Shabaab xilal sare ka soo qabtay oo gacanta dawladda Soomaaliya soo galay hay'adda sirdoonka qaranka nisa ciidamadeeda ayaana la sheegay in ay gacanta ay ku hayaan sargaalkaasi sare ee shabaab ka tirsanaa qawaarijta ee gacanta dawladda soo gala warbixin la xiriirto xilalka oo soo qabtay waxyaabahaasi ayaa idin wadna qodobada kalena waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu kulan la qaatay xubnaha maamulka Jubbaland ee madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland iyadoona sidoo kale goobjoog ay ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka xubnaha ku matalaya iyo sidoo kale golaha wasiirada waxyaabaha ay ka hadleen oo gado ee ugu horeyso warbixin ayaanu ka diyaarinay isla markaasina idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee eebaha wadada adduunka ogolaadan waxaa ka mid noqon doona dadka dawladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga ah inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in talada dadka shacabka ee u doortaan hoggaanka ee rabaan codkoodana ay dhiibanayaan inay dawladda hiigsanayso go'aanadii habeenkii xalay ahaa ee golaha wadatashiga qaranka soo baxay oo madaxweynaha iyo xubnihii madaxda dowlad goboleedyada iyo dawladda dhexe Soomaaliya oo faahfaahinaya warbixin ayaanu ka diyaarinay qodobadaas iyo kuwa kale arrimaha Soomaalida quseeyo anigoo Musa Maxamed Cali ayaa halkan kaaga soo jeedinaya u diyaar garooba ayagoo dhameystiran waa tahay isku soo naqad wanaagsan sida hordhaca ku daawateen isla markaasina idin soo gudbinay waxyaabaha wararka aan idin wadna waxaa ka mid ah sida aan la socono dalkaasi Turkiga ee walaalaha nahay waxaa maanta loo dareerayay doorasho mar kale ay ku tartamayeen madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ninkii la tartamayay Kemal oo isla markaasina maanta doorashadooda ay ahaayeen isla markaasina dadweynaha codkooda ay dhiibanayeen sida ay shaacisay warbaahinta caalamiga ah ee Al Jazeera ayaa waxa qaybteeda Ingiriiska sheegtay ayadoo soo xiganaysa guddiga doorashooyinka ee dalkaasi Turkiga in ay guuleystay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan isla markaasina guddiga doorashooyinka ayagoo ka soo xiganaya waxay ku dhawaaqeen sida tan Definitely look like now we can say Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey, has won this election. He's projected at 52.18%. Kemal Kılıçdaroğlu, the opposition challenger, 47.82%. So based on that, we can say that Recep Tayyip Erdogan is the winner. He's in the pole position for these elections. waxaana Recep Tayyip Erdogan oo noqday mar kale inuu hogaamiyo dalkaasi Turkiga isla markaasina uu madaxweynaha dalkaasi si rasmi ah u noqdo waxaana u hambalyeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxaa lagu sheegay inuu u hambalyeynayo Recep Tayyip Erdogan doorashadii uu ku guuleystay madaxii maxkamad beenaadka ahaa ee kooxda gobolkeeda sii dhacay Al-Shabaab ayaa waxaa gacanta u galay ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA isla markaasina qoraal ka soo baxay ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka ayaa waxaa lagu sheegay in ay gacanta dawladda Soomaaliya oo ku jiro iminka ninkani oo lagu magacaabo isla markaasina kooxda Al-Shabaab in muddo ka tirsanaa Cabdiraxmaan Calin Axmed oo Abu Saciid
ama shariif kooxda dhexdeeda loogu yaqiin 16 sanana ka mid ahaa wuxuuna soo noqday maxkamadda gobolka banaadir qaadi beenaadkooda sidoo kale gobolka shabeellaha hoose sidoo kalena wuxuu noqday madaxa zakawaadka sidoo kalena wuxuu soo noqday ku-xigeenka guud ee zakawaadka kooxdaasi la taliyaha hogaamiyihii hore ee kooxda khawaarijta al-shabaab ee gobolkeeda uu sii dhacay qoraal ka soo baxay insana waxay ku sheegtay in iminka oo gacanta dowladda Soomaaliya oo ku jira kadib uu isku soo dhiibay ninkani ciidanka sirdoonka qaranka oo aysan sheegin goobta iska soo dhiibay waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli dowladda Soomaaliya hore ee u sheegtay cid waliba oo kooxdaasi ka tirsan in uu u furan tahay inuu soo dhiibo balse haddii soo dhiiban la qaarijin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee deegaan doorashada wadaagta Jubbaland iyo sidoo kale golaha wasiirada xubnaha ku madalo Jubbaland ayaa kulankaasi goobjoog ahaa kulanka uu maanta la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa sidii xal looga gaari lahaa maamulka gobolkaasi Gedo isla markaasina uu madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay waxaana oo la sheegay qoraalkaasi ka soo baxay kulankii maanta in la soo dhisi doono guddi khilaafka arrinta Gedo ka taagan iyo sidoo kalena maamulka halkaasi loo magacaabi doono guddoon waxaana la wada hadlay sidoo kale sidii loo dardargeli lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee maamulka Jubbaland halka gobol ka maqan gacanta dowladda loo soo geli lahaa ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale guddoonka gobolka Banaadir ee golaha wada tashiga qaran kulankii ay yeesheen heshiiskii laga soo gaaray faahfaahin uu ka bixiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in lagu heshiiyay sidii doorasho qof iyo cod dalka loogu hirgelin lahaa isla markaasina dowladda Soomaaliya ee qaaday geedi ku aadan sidii nidaamyadii hore ee wax lagu dooro jiray qofka soo dooro jiray oday balse laga gudbo isla markaasina loo baahan yahay in shacabka talada loo celiyo wuxuuna sidoo kale sheegay in hannaankaasi ay dowladdiisu ka go'anta isla markaasina ay qorsheynayso waxyaabihii lagu heshiiyay madaxweynuhu ka hadlay wuxuu yidhi dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaabaan ka nimiday adeer hebel la yiraahdo 50 qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay 100 qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaado ama dowlad federaal ha magacaawdo ama maamul goboleed hadda ayaa sameynayaan ka soo guurnay waxaan u soconaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka Soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiyo waaye kan qofka Soomaaliga codkiisa u sii doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo codka ah ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed u sheegay inay isdejiyaan aysan walaac ka muujin heshiiska ay gaareen isla markaasina ee loogeediga doorashooyinka iyo hannaanka dalka uu galayo aysan wax dhibaato aysan ku jirin walaalayaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celino codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macno yeesho oo masiirkiisu ku gaari karo cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhino inaan ka guurno oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyadno doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku raadayay qaran intaba nidaam siyaasi oo la yaqaan oo la saadaali karo oo sidii wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafaddu ay ka sameyn karto saadaalin muxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waa caalamku ku dhan wax kasta oo American sameeyo waa sameyn karnaa talay nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka Soomaaliyeed oo dhamay u taallaa maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray
nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. waa tahay intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa qodobadii dhowrka ahayd ka daawateen barahan ku leenahay social media sida barteena youtube-ka media sidoo kale barta kale ee facebooka iyo kulan kale